magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliya waxa ka jirta hadalhaynta aroos la sheegay in gabadha uu minxiis u ahaa nin ku labisan dharka ay haween ku xidhaan arintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamadaha kuwaas oo ilaa hadda ka qarnaqaya isla markaana aan ka soo saarin jawaab cad. Cabdiraxmaan Ismaaciil Cumar waa ninka arooska ahaa waxaana warbaahinta markii ugu horeysay uga warramay dhacdadaasi. markii la soo weegay guriga la soo weegay reerka la soo wareegay ayay soo raacday intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta la socon jirtay ana iskuulsina la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cisho ee guriga ugu noolad kadib dabeetana in iyadoo gabadh ay ugu noolad guriga iyo xaafadda ku nool markasta way naqaameen ma naqaameen naqaabku markii meelaha u baxay jirtay laakiin waxay xiran jirtay dharkii dumarka iyo labisii shisheeye roob burusha in qalin sunna in labisii dibna wax walba marsan jirtay wixii dumarka marsan oo marsan jirtay dabeetana in ma dareemin xaafadii ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay ninka marka hore magaranaysa oo guriga ku wada noolayeen balayid sayma markii dambe la xaqiijinayo guriga ku wada noolayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafadan inanka yar u shaqeyn jirtay dabeetana in staatay guriga ku yimaadeen marka in kadibna in 20 cisho markay guriga noolayd ay galabta dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto in hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markii timi in ay xaafadii weydiisay amanay inankii Cabdiraxmaan kula joogay يبين مركا حفدي مقلتي ما تدي عبد الرحمن لما تشوقين وحلا تشوقتينا ليلها اسمع تبعتو صارت فشل انت وارتي يقف فشل مركا ما نقول حمانا نقانين مركا ان محكمه حقين سليغان وين سليغا ifti ma ku xidhnay inankii gabadhiiba kiba doonteen markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankayga baa habay tiri markii ay caynka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliino in guriga tiliga soo wareejiyay ayaan xidhnayo in guriga intan ugu yeedhay guriga keenay ayaan ku arrintaas dhacday dabeetana arrinta ka warrama waan waxay arrintaas u jirtaayo ninkaas waxaan inaan muhayn marka xaafadii baa ku kacday oo tiri maxaa dal oo qarinaysan ayaa habliyo la saxan jirtay ayaa xanaaqayo in meeshii maxaa dal lagu qarinayo isla mar saasan ku xidhnayo saliga ku geeyay markaan saliga geeyay labadoodii walaalaha ayaan ninkiina keena marka wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoonina Cabdiraxmaan oo ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta uu uga waayay ninka gurigiisa kula noolaa isla markaana muddada dheer minxiiska u ahaa afadiisa ayaa ku jawaabay shakiniga ma gelin shakina macal xaafaddu dawi dareemay wax dareemay idoo waxaan waa nin damana aniga la cadeeyay reerkood bacdi fishiliyay anagu ma dareemin waxa ma dareemin inanu banwaysan waxa kale uu xusay in ka hor haasawaha guurka gabadhiisa in ay sheeko wadaag lahaayeen ninkan dharka dumarka ku labisan ee gurigiisa kula noolaa internet guurtana ka hor marka ruuxa la sheekan jiray inaan qofkan isbedelay ay marka hore la sheekan jiray marka wuxuu anu diyaar ma yahay in noo shaqeysa ayaan baraya marka saadirtii inuu bareekan markii uu barayna inantan walaalayn baa ila soo hadashay telefoon miisanayay marka waxay tiri in Cabdiraxmaan ay maadiga ayo markaa ku lahaa laakiin inanta ma sheegaysan waxa inantii naga la tagay baa leeyahay noo kaalayo de waxba la tagaynay Cabdiraxmaan oo inanta kaalay ka xis oo caadi u soo fadhiisay caadi geesta kale Safiya Xasan Cumar waa haweeney ay muddo 20 cisho ahayd isyaqaanana ninkan ku labisan dharka dumarka hase yeeshee u haysteen in uu yahay qof dumar ah waxaana ka sheekaysay bal waxyaabihii ay ka arki jirtay iyo waliba qisooyinkii ay wadaageen dadna anagu inta ay nala joogtay dhowr iyo 20 yaalano inaan baan u arkaynay inaan baan u arkaynay walaasheed caawinayso la joogta marka inta ku yiri walaal maxaad intan yar Fariida ninka ka qaadan doonta asmaa aaminaye inta asmaa isdaafi ninka ka qaadan wallahi Fariid yare isaga waxa tireel baan ayo abooyad baa tiri inta iskuulku fasax u gaadhay ilaa ku noolatay daayna taas soo dirin marka saatina dama naan shudeyna waa iska aamusnay marka halkan dariiqa noo maraysa inay yaro waxaan moodayno si fiican reerka u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanayo biyaha guriga u dhigi jirtay iskuuliga u dhigi jirtay tiisuma maamulsan iyada maamul jirtayba ninkan inta rasmiga noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaday haday tahay inka iyada u keen jirtay qolaas oran jiray amanay in qoyan baa tahay anagu dawaan ka xishoon jiro inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u gaado ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo ma oran jiray waa aamin jirtay iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay hadalka ma keen jirin marmar ba halkaas waxaan xanuunsan jiray macaani Allah waxaan jiray aaminay Allah cod weyne waan ka nahay wala marka ayaa tuure ku laaran jiray waan ka nahay balay codka weyn markaas oran jiray ninkii maxay safay leedahay cod weyn baa tahay ku oran jirtay horta codka dara dib u dhuubi jirtay kolka yar codkeeda yar dareemayna naabasha codkeeda maxay tahay waxani way yar dhuubi jirtay codka marka inanta yar waxaan ma sid fiican u tababar fiican la siiyay moodi jiray wallahi waa inaan markii la iidaan maxkamada ku arkeen arkay wajigeedii wallahi ma tana asmaa ma ku ma tana asmaa matana asmaa iskama mayna qaadeen baamti iyo qasilka kolla wajigeeda may dhimi jirin hadda in yaro 5 mirir may maqnaan jirin wajigeedani dhooban bas u marsan jirtay waxaan habluus mariyaan emta
qasilka da waxa habluus mariyaan bismarin jirto naasay roob bush isku samaysay guud yar oo timan dheer isku samaysay deena yar si fiican oo tababarto iska leedahay biyaabis baahan jirto walaalo oo ma sha Allah ina si fiican oo tababarto ma jirin waxaan jiraa Aaminaa ina tayar fariid inta halka farsta kaabada Aaminaa man yeeray Aaminaa ina tayar fariid waxaan ka yaa wiilka cabdiya ina ka qaat adu ina yar qabuuba taayaan ku yiri ina ta fariid saaminka maamulaysa jirka meedka u dhigaysa biyo ku dhaqanayo saliid u dhigaysa هذا السينيسا ويكا قادن انت استافي نجادان عنايه هون كيبل TV hargeysa